maxay tahay culayska ka iman kari lahaa cunaqabateynta 1267 committee meeshii ay shabaab joogaan hadduu disaster ka dhaco wax la geen kara bale taas yaa nagu taageeray dhammaan hay-adihii humanitarian ka shaqeynaya dhan waxay ku taageereen Soomaaliya run ahaantii waa nasiib dar inay jiraan shakhsiyaad doonaya in xilka dalka ugu sareeya u tartamaan isla markaana aanan fahmi karin culayska weyn ee ka iman karo cunaqabateynta 267 ee committee iyo culayska uu dalka u keeni karo walaalahayga Soomaalida marka maxay tweet garaynayaan the propaganda of Kenyans anaga faafinayna 74 sano ay jirtay qaramada midoobay cunaqabateynta la soo rogay waxay dhamaayeen 30 cunaqabateyn waqtiga hadda la joogo waxaa jira 14 cunaqabateyn oo qaramada midoobay cunaqabateynta ugu waqtiga dheer waxa ilaa iyo maanta ay saaran tahay dalkeena Soomaaliya waxaana loo yaqaanaa Somali Sanchez Regime su'aasha waxa weeye yaa dalbaday in Soomaaliya hadda cunaqabateyn hor leh loogu daro maxaa kulmiyay saddexdan arrimood khudbadda Axmed Madoobe iyo hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta codsiga dawladda Kenya ah in cunaqabateyn dheeriya la saaro Soomaaliya iyada oo loo cuskanayo al-shabaab Axmed Madoobe isdoorashadiisa kadib wuxuu warbaahinta hor yimid isagoo caraya caburin badan ay ka muuqato laakiin uu qof siyaasadda ku fashilmay haddii madaxda federaalku ay iska bedeli waayaan waxa maanta ay ku socdaan ee dhibaatada jawaabta ku xigteen bixinaa waxay noqonaysaa midaan ka bedelan oo ka adag Uhuru ayaa isna mar uu la hadlayay ciidamada Kenya yidhi we will stay there until they bring order in their nation ciidamada Kenya marnaba diyaar uma aha inay ka soo baxaan Soomaaliya ilaa inta ay joogaan al-shabaab haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah waayo al-shabaabku Uhuru Kenyatta sheegaya ay jooga Soomaaliya